weydiiye anigu maalin dhexdaas reediyo muqdisho aan dhageysanahay waana si horeysay ahayde waxaan maqlahay ayadoo nin cadaan ay wareysanayaan afka ingiriisiga laga turjumayo ninkaas wuxuu lahaa 20 trilyan oo markaan trilyan ka weydiinay waxa la waa tiro la sheegay numberka ugu badan oo kun ayaxabay heedaas keento dalkaas loogu daadeen beeru idin falahayaabo ninkaas lahaa oo yaalina cid baarto arinta ka daba tagtay ayaxa kan cid keentay qasaarada weyn geystay ma jirta miya hawaya iska lahaa hawshaas horta yay u taal wariyaara waxaan weydiiyay waayahan sidaad arkayseen ama maqlayseen ama la sheegahayay taageerada beesha caalamka ee Soomaaliya way taagnayd oo way socotay tusaale hadda wasaaradaha kale wasaaradda gaashaandhigga kale taageerada beesha caalamka way muuqataa وكوا درون إسك شقينا يو أو واحد دخينا يو عيد ماضي لو كهوفيو وسارة إسبورتي وكله وايش قيسايو إسبدل بالعرب بكتيرو قرمة بدن بنقصه من أفريكان وسارة بدن بوركود عادي طلعوا وسارة دي حنانة حولها ينرتا يداغو نوما شقيس مياه هذا يس شقيسو من نوعين حتى هل ديارة إنه يكدر بدن أدونك أو أي حبو في سه سلوا بدبادية خيرات كودن وحال إذن ويدي كل يتبع وسارة دي كل شغال هذا أرمهان واحد ديارة يحكبوا في أنمه استانتاس واسكعد هاي حتى ما أودي واين إن الدولة الأمريكان جويديسان ترانسكي واحد غيجري عدو يريس مقالة إن نجد غيان أي حان dhulkii baabi'iyay iyo dalagii beeraha waryaadahe wasawtii la lahay Soomaaliya waxay ku biirtay ururka la dagaalanka ayaxa ma ku biiritaankii aan ku biirnaa wuxuu noqday in fursad ay noqotay oo kumiisiiba dalkan la kugu beeray sababtoo baalku nagu sii batayba la dagaalanka ayaxa oo la sheego macnaha gacanyaale waa lagu dagaalama mas goosaan waa lagu badujinaa macnaha doqo soo lixin war mal neefsanaya maqliye goosahana waa lagu darayaa oo waliba lagu rigaaxaya waraaqyare waxaan idin weydiiyay xageeba maraysa hawshii laga doodayaa ayaamahan ay ahayd qoontada dumarka in loo kordhiyo ragowsa see u aragtaan arrintaas xaynta dumarku boqolkiiba 30 ay haasteen cusaybka ay alaabta gabgabtaan cusub ay keeneen artumar waa wareerteen durdurageela ku jabayaa la yiri aalyar meelo fadhiista ninkiina iyo gurigiina iyo ilmihiina oo qubaysaan ku ekaada anjeeradiina dubdha gabgabtaaya fahfahdaan iska dhaafe meel naga fadhiista xidkiina waa gudubteen war muxuu yiri gurigiina fadhihi anjeerada dubta war yaa ma dumar la'aantood baad wax ahaan lahayd war yaa dumarka hadii uuna ahayn dalkaanu ma dhisnaan lahayn ayaga dahabka ayaga wax walba suubiye ilaa ay haddana way ku taagan yihiin qoondadana waxaan rabnaa in la siiyo boqolkiiba 60 aan u baahanahay maxay taa waxa dib noogu dhigayso dumar la'aantiis miyaad noolaan kartaa dumarka hal qabsigiisa wuxuu yahay ma taqaanaa waa hubiya saamigay helaan alla ilaahay gabadhaas waa runteed maxaa yeelay hooyadu waa xaqle waana laga maarmaan dad kale ayada u hooya dal kale ayada u hooya hogaanna waa ku suubantahay dadka inay ka qayb galaan siyaasadana waa wax loo baahan yahay maxaa yeelay dalkan wuxuu ku dhisay waa hooyo yaanyada yaa gado guriga biila waa hooyo carruurta yaa iskoolka ka bixiya waa hooyo yaa gacmaha haya waa hooyo yaa u qubeeya waa hooyo hadda gabdhaha askartaana gabadhu hadday askari qorato dalkoo dhan waa wada ciidan gabadhu hadday macallin noqoto ummadoo dhan baa wada waxbarasho ah gabadhu haddii ilaahay ku madax noqoto dalkoo dhan baa wada hoggaan suubanaanhaya maxaa loogu diidahayaa dadkii ka mid yihiin salaamu calaykum adoo yaab waay wallahi horta haweenka maasha Allah waa waxad jir waatiin oo lafdhawar waatiin ani lafdhabartee mago duudka iigu taala ma kasteen waxaan sheegaa laakiinse waa naga babadiseen wax yar baa did hadashiin dahabkeenan gadne faraantiyaan gadne war dahabkaas ragle mani gadina unu ka camal maxaa waay dooda ii dacwadan 24 saacad ku jirtiin والله يبل nimanka qaqaydinayo maxaa la jira dahabka anaga inaga imaade war waxa isku haysan nin walba rag oo haliyay oo haybad gaaraysiyo hooyo ka yimaado waa inaad ogaataan meesha ka timaadeen dalkan 30 sano ilaahay ka sii kow dumarka badbaadiyay ma fahanteen hadii aad dumarka u ogolaan weysaan qoondadooda waxaad ogaanaysiin dunida hormartay waligiin waa ka dambeynaysiin waa inaad dumarka number 1 aad ka dhigtaan boqolkiiba 60 waa siinaysaan niman yahow wax laga yaabay iyo yaaba baa jire dumar miis garaacahayo oo kororsi doonaya hogaamiye noqdaan looga kari waayay xagee loo socdaa waylayaab meesha loo kacay xukunkiyo tafsiirkii miyaa laga hanweynaaday marka dumarkii qaxiseen oo ilmihii kaga dhaqaaqdeen ragna waajibkiisii gabaan loolankii nimide adinkuba tafsiirkiyo naxwaha kuma dhaqmaysaane marka dumarka aragtaan miyaad khaalis noqotaan horta gabadha Soomaaliyeed Fariida hadashay waa u garaabahaya waayo dulmi waa la galay oo gabdhaha waa laga galay waa sax ololahooduna wuxuu soo bilowday iyo hanqaltaha gooda siyaasadeed maalinta ay soo baxday maahmaahda la yiraahdo processkaanu xaq ma
maahane waa xal taasoo markasta uu ku qodbayay siyaasiga Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay haddii xal barnaamijku yahay qayb bay ka yihiin dalkana ayaga kaalin weyn ka qaatay burburkii wixii ka dambeeyay hal siya xuquuqdooda haya isku maanta maxaa sixid u baahan waxaa sixid u baahan oo sixid u baahan dhalinyarada ciyaartooyda Soomaaliyeed ee intooda badani iska soo abaabulay qurbaha inay helaan xuquuq ay ku lahaayeen dawladda iyo tay shacabka ku lahaayeen iyo taageeradii oo ay helaan tababarayaal caalamiya in la iska taago ayaa alla sixid u baahan waxaa kaloo sixid u baahan oo mar kastaba inay sixid u baahan yihiin sheegayna wacyigelinta Soomaaliya in la tayeeyo oo la dardargeliyo waxaa kaloo sixid u baahan shaqaalaha mushaariga ah ee qaarkoodna 24 saac ay shaqaynayaan qaarkoodna gurigii ay mushaarka ku qaadanayaan taas ayana sixid u baahan waxaa saxoo u baahan magaalo dhan haddii ilaahay ku roon yahay oo 5 sano isbitaal la'aan leh ku nooleed oo waatee magaaladaas buurdhuuwo hoy adi waxaan ku dhahay buurdhuubad os sheegay ninkaaneetu maxaa waaye ma degma mase waa tuulo war annagaa kuu sheegaynee buurdhuubo dawladdii kacaanka ee hore ayay degmahayd waa degmo qadiimiya oo la yaqaan oo weliba ka mida degmooyinka ugu horreeya Soomaaliya ka mid tahay buurdhuub war haadhahay waxaa idin weydiiyey buurdhuub hadday tahay degmo intaasoo sanad joogtay maxaa dhacay aawa xildhibaanadii maamul goboleedka aawa xildhibaanadii federaalka weli maan arag wax ka socdee iyada dhanba waaba aasantay maxay tahay war haadhahay dadka buurdhuuba ku dhibaataysan in badan baan maqlayaa kuwa loo dhaartay ka mid maahan miya hey sidii buurdhuub oo kale degma dhamoon daryeel lahayn dawladdu ma damqato dawladdu ma damqato dawladdu ma damqato dalka horumarkiisa iyo dadka dib u heshiisiinta horta dawladda laga rabaa inay daneeyayso oo ay damaanad qaadaan amniga kuna dadaalaan wixii la isku daro maalima dib u macaadaan waxay isku maana tiri maskaxda waa lagu dhisaa madaxa waa lagu hagaa midigta waa lagu qabtaa mijaha waa lagu socdaa miskaha waa lagu kacaa margigu wuu caawiyaa hadday kala maqan yihiin maqsuud lama gaari karo midnimaduna waa sidaas wixiina marooriyo muraad gaariya danlana ma yeelayno ku filan